وأنكم مقلة جميلة حلبانة برلمان كصوماليا يا جوردو dadka waxa ay kala laabteen xukuumadda uu hogaamiyo ra'iisul wasaare Saacid mudanayaasha baarlamaanka ayaa waxaa ku howlanayeen muddooyinkan dambe ka doodista mooshinka ka dhanka ah xukuumadda ra'iisul wasaare Saacid oo baarlamaanka la horgeeyay waxaana ra'iisul wasaaraha codka kalsoonida kala noqday ilaa 194 mudane waxaana diiday 65 xildhibaan oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya sidaas darteed gudoomiyaha waxa uu sheegay baarlamaanka Professor Maxamed Cismaan Jawaari in mooshinkaasi uu hirgalay isla markaana ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa ay sii hayn doonaan inta ra'iisul wasaare cusub uu ka soo magacaabayo madaxweynaha Soomaaliya luul waxaa jirtay in ra'iisul wasaaruhu uu codsaday in la siiyo fursad oo ku hadlo taasi ma suurto gashay ما أنا سورتلين مالتي شلي أهيد وضد موشكات إكسئتي أي حلبانة كتستن بارلمان كأي سوجيدين ما أنت لا لبي لبا وكتستن بارلمان كأي سوجيدي عرفت عشان كنت حلبانة هو أيدين دونين وحوشين مرة بعد عن لقطة دونين ما دام مالتي شلي عدت عن تاج حلبانة دلوك ليه إن أي أبلادان إن رئيس الوزراء وفدي جماده والفشل حلبانة بأي عرفت عشان وجودته ورجيتين حتى هو حاجة كي تاجن مثل حلبانة baarlamaanka ee kamidka ahaa mooshinkaasi xildhibaan gaarane ayaa kugu dhiibaya telefoonka waa tahay xildhibaan gaarane may maqlaysaa xildhibaan gaarane may maqlaysaa halo xildhibaan bismillahirrahmanirrahim sallallahu ala nabiyina muhammad min ma santa waxaan kamid ahay xildhibaanadii keenay mooshinka ee isbedelay laxdaa runtii waxaan marka horena kamid ahaa mooshinadii hore ee laga keenay xukuumadda dadkii farakutiriska ay hortaagnaa ee difaaci jiray baan kamid ahaa aniga oo islahaa 6 bilood iyo wax sanad ka yar hadda xukuumad xisaabtankeeda lama geli kara halkaa qaadasa waqti hadda sanad iyo xoogaa bay jirtaa wax ka soo reyna markaan weynay oo shacabka Soomaaliyeed meel kastoo joogo niyad xumo iyo moraal xumo iyo in xukuumadii iyo dowladii iyo runtii aad looga qalbi jabay markaanu aragnay waxaan go'aansanay in xukuumaddan lagala noqdo kalsoonida sidaas daraadeed baan mooshinka u keenay xildhibaan ma isleedahay marka maadaama aad midkan codka kala noqoteen midka dambe oo aad keeni doontaan ma lagu kalsoonaan karaa asigana mase waxaa laga yaabaa asigana in codka kala noqotaan haddii uu hal sano jirsado والله إلهي بقى سبحانه وتعالى أنت كرنايا لكن أنا وحاول إذا يتاعي مثل مركان وكرتها حكومة مركان سبيلها أدي أنا أعرف إنه حكومة مسؤول كريم بدله إذا كان إلهي وأنا صارنا وحاول يسوي هذا من حوالها مدر كستوريا أو إن وشو رئيس الوزراء بدل دور رئيس الوزراء في حكومة التنظيم صحراء وحالنا أي وأنا تعين إن إلهي سبحانه وتعالى هو أفريقيا إتكلم فعلها ومدن سوماليات لكن حلبان رئيس الوزراء ساعد مدة هذه السنة هذه وحير أو جري حكومة بتشا حكومة الصومالية دلوقتي يعلم كيف يكون على كسر سارة إلى لو كسر وعارف فريق وقدر يا مدعونا هو إن شاء الله تعالى إن سنة تستمر كل وحق لي إلى بشر السوق خيرين أو كسر مريض سوى تشير الثمانية يدلالي يبان حلبان يا إسلام هاي وحكومة واي مقعاب دونتا يا إسلام هاي إلا مقعاب وهذا إسلام إلا يهد عربورا تاسوا وورد مشكلة يا مدعونا أو دستوريا إشي أيام مسؤولية تاسكلا وأنا كتسوينا أنا وحالينا هنا نتعينه مشي ودغلاسا كلنا عن كلا ترينه هدي وكيرنا قف سوماليا وقويانا وأنا سلينا هاي مسؤوليتها وقاية كرا هنا كوكا عسينا هنا كالسوري سينا ومدى وشقايو هدي أروار إنه قف هوري وشقايا مع مسؤوليتها قاية كرينا حابانو لينا كوحيرنو عندنا شو بدل أنا ونعودة دستوري علينا هاي عشان نبتكروا لي هاي waatahay aad baa u maasanta waxaan filayaa inuu ku garab taagan yahay xildhibaan kale oo asna kamid ahaa xildhibaanadii la jiray dhanka ra'iisul wasaare Saacid intaan inta u qodin hooga faa'iideysanaya maanta aad baa waxaan ugu faraxsanahay in qodobka Suuriya aad u qiimo badan baarlamaanku go'aan ka gaaro meeshii hadda ka hor xilligan oo kale naloo yeelin jiray dowladaha caalamka ama beesha caalamka ama kuwa dariska faragelin lagu soo samayn jiray waxaan aad ugu faraxsanahay baarlamaankeenu inuu maanta go'aanka masiiriga isagoo ku qaatay xaruntiisa waxaan kaloo ku faraxsanahay runtii in baarlamaanka Soomaaliya
soomaaliyeed waajibaadkaas loo guto isagoo aan inuu fikirka isku khilaafsan yahay maana wax dooda iyo wax dhibaato haysata camarin aad baan runta ugu faraxsanahay. waxaan kuu dhiibayaa xildhibaan Professor Dalxa oo kamid ah mudanayaasha baarlamaanka isla markaana kasoo horjeeda mooshinkii codka kalsoonida lagala laabtay xukuumadda uu hogaamiyo ra-iisul wasaare Saacid waxaana uu cabirayaa fikirkiisa ku aadan arrintaas. hagaag bismillahi raxmaani raxiim jamiil waa saaman tahay waana guud ahaan dadka soomaaliyeed dadka joogaana sidoo kale runtii aragtida nin wada meel bay maaragtay ay socotay doodu marxalada iyo siyaabo fara badan baa xildhibaanada nin walba si uu arkay maanta xukuumaddu inaysi maaragtay shaqayso maadaama marxaladaha ayagoo kasii maaragtay silaal qaadanaya taagan tahay xaaladdu balse laakiin waxaa ay noqotay in xukuumadda marka mooshinka xildhibaanadii ay keeneen inuu guuleysto xildhibaanadii koleyba lagu guuleystay oo laftirkeega Professor Dalxa may maqlaysaa? Professor may maqlaysaa? in arrintaasi haddana aanan u guuleysan waa soo dhaweynaynaa mar waliba Professor haddii aad maqlayso doorashadu qaabka maanta go'aan qaadku u dhacay ma ku qanacsantiin adinku haddii aad tihiin xildhibaanadii taageersanaa ra-iisul wasaaraha? runtii doorashadu hadda laba nooc process dheer bay soo martay processka mar waa la isku qabsanayay mar waa laga gudbaayey haddii sida hadda maanta codka marka la jiriyo waxay u dhaheen ay tahay cod maaragtay aqlabiyada ayay maaragtay guddoonka sida uu meesha uu ka cadeeyay oo runtii dadaal hadda ay geliyeen oo laftirkooda oo tirada markaan fiirinaynay hadda xoogaa aanan wax looga sheegi lahaa ay arag Professor may maqlaysaa? tiradaas ay ku qoristeen xildhibaanadii mooshinkaa keenay inaan dowladda hadda kulleybo hawsha u taal in haddana wax qof bedelay inaysan noqon nidaam badan ee ummadda soomaaliyeed ku qancaan inay Professor Dalxa may maqlaysaa maxaad ka filaysaan ra-iisul wasaaraha cusub ee lasoo magacaabay haddii aad tihiin xildhibaanadii kasoo horjeeday mooshinkan? annaga hadda waxaan sugaynaa waxaa la yiri waxaa lagu dhaliilayaa amni xumo waxaa lagu dhaliilayaa bulsho wixii looga baahnaa arrimaha bulshada iyo dhaqaalihii marka haddii xukuumadda lasoo magacaabi doono waxaa laga filayaa marka inay arrimahaas oo dhan wax ka bedelan ay la timaado annaga wasiir bedela iyo prime bedela waxba ma soo kordhinayso taa waxa waaye waa waxbaan hore ugu soo daalay laakiin waxaan sugaynaa ma isleedahay mudane ra-iisul wasaaraha cusub ee kale asna lasoo magacaabi doono sidan oo kale ayaa isna loo dhaliili doona isla markaana mooshin loo qaadi doonaa ka dhana kulleyba waxa waaye waa iska fudud tahay hadda sidii loo bilaabay waaye ninkii heshiisa la garan waaye inuu iska socon doono kulleyba taariikh kulleyba dad xildhibaanada bay kasii doontaa kartaasi adinku ra-iisul wasaaraha maxaad ku taageersaneen ma waxqabad gooniya oo qabtaad ku taageersaneedeen mase hawlo kale idinka dhexeed ku taageersaneedeen maadaama codka ayay bixinayaan qaar ay u mareen inay zaid dadkiisa meeshay marin doonaan ayaga ay noqon doonaan kuwa cadaalad ku salaysan halka jariidanaha ummadda soomaaliya waa tahay aad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahay xildhibaan Professor Dalxa oo asiguna kamid ahaa xildhibaanadii maanta la jiray garabka ra-iisul wasaare Saacid iyadoo horeyna uga hadlay xildhibaan Gaarane oo ah kuwii kasoo horjeeday